runtii waxaa aad ugu faraxsanahay dhalinyarada galbeeyga taagan maanta in xiriirkeena mini footballka ama kubadda cagta Soomaaliyeed inuu runtii gacan ka geystay waa dareemeynaa runtii si oo waxaan u dareemeynaa oo gudaheena ka dareemeynaa maxaa yeelay waa ciyaalka aan dhalnay oo kale adeeradooda aan nahay in maanta aan yidiilo inaan tusino oo aan maaragtay dhiirigelin inaan ku sameeyno mini footballka ahaan waa waxyaabo aad aan ugu faraxsanahay ma aha runtii kaligood inay faraxsan yihiin annaga laftirkeena waa faraxsanahay sababtoo ah inaan dhalinyarada kaalmeeno waxay noo tahay mid oo taariikhda noo gashay noo tahay ma aha itaal oo kaliya maanta inay meeshan ka faa'iiday xiriirka Soomaaliyeed ee mini footballka laftirkiisa halka uu ka faa'iiday sababtoo maanta wuxuu sameystay saaxiibo cusub ayuu sameystay saaxiibada cusubna waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inay nala ambaqaadaan mini footballka oo u noqdo meesha kaliya ee maanta ay tigsanaan insha Allah taala macallimiin badan ayaan qabnaa oo yani ka tirsan xiriirkeena macallimiintaasna insha Allah taala maalmo kale ayaa jiri doono oo aan wada qadeyn doono insha Allah taala biidnillahi alkariim xiriirka oo dhameystiran macallimiintooda oo jooga idinka oo dhameystiran maalin ayaan wada qadeyn doonaa insha Allah taala waxaan taas u leeyahay waxaan rabaa in macallimiinteena laftirkooda inay qayb ka qaataan tababarada la siinayo ciyaalka yararka insha Allah taala waan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu dambeyn si gaar ugu mahadcelinayaa walaalkay Aweys runtii oo ku dhiiraday in dhalinyaradan in shaqo la qabto af ahaan in loo qabto waa iska fududahay laakiin hawsha oo haayo qofkii wax soo waday ama koox hore u soo wadi jiray ayaa yaqaan ilmo yar qofka wadane dhibaatada iyo yacna waxyaabaha face-gareena ay challenge hor yaallo wax la qiyaas kara ma Aweys oo kuwan baleenayna in lagu daysado Aweysna oo Soomaaliya ay ka kana qaadaan academies oo ciyaalka yararka inay ka ambaqaadaan waa rajaynaynaa insha Allah taala hadii ila yiraahdo ciyaalkan oo rajaynayna waliba inay yihiin kuwa wax barta oo iskuulo iyo dugsi quraan inta ku jirta insha Allah taala waxaan ugu dambeyn halkan maad balan u jeedinayaa goobjoog oo runtii la'aantood mini footballka maanta heerka uu taagan yahay oo soo gaar lahayn si gaara walaalkay Maxamed Xuseen Qalin leh oo mar walba nala daba taagan waqtigiisa qaaliga waxaan ku soo gabagabeynayaa waa maasantiin waxaan rajaynaynaa insha Allah taala wada shaqeyn inay tahay halkan oo aysan ahayn kaalmo oo kaliya inaan kaalmeeyno itaal kaliya ma ahane inay tahay maanta inaan noo bilowday wada shaqeyn insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.